maxaa dunida ka dhacay 2008 bal dib u xasuus halkii aad ku sugnayd xilliga waxaa laga yaabaa inaad waayo joog weyd 2008 mise aadan la socon wax dunida ka dhacay sanadka oo ah sanad ka duwan sanadada kale bal aan kula wadaaga xog ku saabsan arrinta ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. dad badan oo waayaraga waxay isweydiinayaan maxaa keenay in sicirka badeecada oo waayadii hore ah raqiis uu hadda noqday qaali waliba inuu kor u sii socdo mooyaane aanan hoos u soo dhicin. 2008 waxaa dhacay arrin dunida oo dhan bedeshay wejigay ku socotay mooyaane weji kale u yeeshay. waxaa qalqalgalay wadamo dhaqaale ahaan waaweyn kuwa oo ku sigtay in gebi ahaan buu burburo dhaqaalahooda. 2008 waxaa dhacay qalqal lacageed oo kasoo bilowday Ameerika saameyn xoog lehna ku yeeshay wadamada soo koraya iyo kuwa ka hooseeya xariiqa saboolnimada. haddaba maxaa sababay qalqalka? sanadkii 2000 waxaa hoos u dhac uu ku yimid heerka dulsaarka deymaha. taasi waxay keentay in dad badan ay amahdaan lacag si ay u iibsadaan guryo. waxaa siyaaday qiimaha guryaha, laakiin arrinku wuxuu isbedelay 2006. calaamadii ugu horreeyay ee qalqalka dhaqaale waxaa la arkay 2006 markii qiimaha guryaha ay bilaabeen in hoos u dhacaan. bishii Agoosto 2007 bangiga dhexe ee Mareykanka waxa uu ka jawaabay mashaakilkii deymaha guryaha iyadoo lagu kordhiyay $24 bilyan oo loogu talagalay nidaamka baananka lacageed. markii qalalaas uu dhacay, bangiga dhexe Yurub waxa uu diiday inuu dib u dhigto ama deyn ku sameeyo. taa beddelkeeda waxa uu ku deeqay xirmo badbaadina iyadoona shuruud looga dhigay in wadamada dalbanay ay raacaan siyaasadda kala damaynta. 15 bishii Sebtembar 2008 bankiga Lehman Brothers oo ah mid ka mid a bangiyada lacagta ugu waaweyn dunida ayaa ku dhawaaqay inuu masallafay kacay iyadoona maalinta loo tixgeliyay inay tahay maalinta ay bilaabatay qalqalka dhaqaale dunida. markii ay dhacday Lehman Brothers waxaa shaqadoodii waayay 26,000 oo shaqaale. sidoo kale waxaa gebi ahaanba ama inta badan lacagtoodii waayay milyan maalgashadayaal ah. wadanka Mareykanka in ka badan 8 milyan oo muwaadiniin ah ayaa waayay shaqadoodii. ku dhawaad 25 milyan oo ganacsi ayaa xirmay. ku dhawaad 4 milyan oo guryood ayaa albaabada isugu dhuftay wax ka yar 2 sano. xiisada dhaqaale waxaa ugu horeyn sababay hoos u dhac ku yimid warshadaha lacag. taasi waxay ku qasabtay bangiyada inay ka howlgalaan xaydaab ku aruursan ganacsiga. bangiyada ayaa markaa kadib dalbaday amaah badan si ay u taageeraan iibka faa'iidada leh ee soo saarayaasha lacagta. waxay abuureen amaah dulsaar lahayn taa oo noqotay mid awood ugu yeelan karaan kuwa wax amaahda. sanadkii 2004 kaydka maaliyadeed ee federaalka waxa uu sare u qaaday heerka lacagta la deymiyo sida saamiyada dulsaarka. amaahda cusub qiimaha guryaha waxay bilaabeen in hoos u dhacaan. taasi waxay ku keentay dadka guryaha leh inay awoodi waayaan inay bixiyaan lacagaha xitaa gurigoodu iibin kari waayeen. bangiyadan waxay joojiyeen inay is amaahiyaan. taasi waxay abuurtay qalqal dhaqaale oo horsayday hoos u dhac weyn. tiro badan oo dhaqaalyahana ayaa sheegaya in ay saadaaliyeen qalqalkii dhaqaale 2008. qalqalkii dhacay 2008 waxa uu kii ugu weynaa soo maray nidaamka maaliyadeed ee adduunka muddo ku dhow hal qarni. qalqalkii dhacay 2008 waxa uu kii ugu weynaa soo maray nidaamka maaliyadeed ee adduunka muddo ku dhow hal qarni. waxay ku qasabtay nidaamka bangiyada adduunka inay u jeestaan dhinaca burburka. qalqalkii dhaqaale waxa uu keenay culeys dhaqaale. culeyska dhaqaalena waxa uu abuuray qalalaasa bulsho. qalalaasa bulsho ayaa dhaliyay xiisad siyaasadeed caalami ah. sidayna kasoo xiganayna World Economic Forum 2009 waxa uu noqday sanadkii ugu horreeyay inta diiwaanka la geliyay uu hoos u dhaco wax soo saarka guud ee caalamka GDP-ga iyadoona koritaanka la lumiyay ee ka dhashay qalqalka dhaqaale lagu qiyaasay 10 trilyan. dhaqaalyahanada ayaa sheegay in 2008 wax dhacay ahaayeen musiibadii dhaqaale ugu xumeyd adduunka tan iyo 1930 marka uu dhacay hoos u dhici dhaqaale ugu weynaa adduunka. sanadii 1930 qalqalkii suuqa saamiyada ayaa loo tixgeliyay dhacdadii dhaqaale ugu xumeyd taariikhda adduunka iyadoona bilaabatay maalin khamiis ah Oktoobar 24 1929. bishii Agoosto 1929 toddobaadii yar uun ka hor inta uusan suuqa saamiyada dhicin, bangiga dhexe ee Federal Reserve of New York waxa uu sare u qaaday heerka dulsaarka 5% ilaa 6%. qalqalka dhaqaale ayaa socday 18 bilood waxa uuna bilowday Diseembar 2007 ilaa Juun 2009 waxa uuna saameeyay siyaasadda laba madaxweyne ee Mareykanka soo maray Bush iyo Obama oo xilka qabtay iyadoo bartanka lagaga jiro qalqalkii dhaqaale. dhaqaalyahanada ayaa saadaalinaya in sanadkan ku jirno 2020 uu dhacay qalqalka xiga kii 2008. bishii Agoosto 2019 xag ururin ay samaysay National Association for Business Economics 226 dhaqaalyahan ayaa wax laga weydiiyay saadaalinta dhaqaale ee Mareykanka. 38% dhaqaalyahanada ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in Mareykanka uu geli doono 2020 hoos u dhici xigay kii 2008 halka 34% ay saadaaliyeen 2021 inuu dhici doono. kaliya 14% ayaa sheegay inay dhici doonto intaas kadib. dhaqaalyahanada qaar ayaa sheegaya inuu jiro calaamada muujinaya inay dhici karto hoos u dhac kale oo ay ka mid tahay
inuu hooseeyo heerka dulsaarka deymaha oo ahayd bilowgii hoos u dhacay 2008 iyo qalqalkii dhaqaale. nidaamka anti-goosadka oo ay wadamada reer galbeedka iyo inta badan wadamada adduunka ku shaqeeyaan ayaaba ku dhisan inuu ku yimaado qalqal ama hoos u dhac, hadduusan ku imaana ay ka dhigan tahay in nidaamka uusan u saxnayn. nidaamka raasimaaliga dhaqaalaha maanta adduunka haysta muslimiintuna ay ku jiraan mashaakilka ku dhaca ee inagu aynu u haysaneen leenahay crisis baa ku dhacay, crisis baa dhaqaalihii ku dhacay aynu leenahay. nidaamkaasi wuxuu aaminsan yahay crisis hadduu ku dhici waayo systemku sax inaanu ahayn. hadda inagu 2008 wixii dhacay maxay niri Europe way kaceen, Mareykan wuu kacay, saas inagu aaminsanay Soomaha. iyagu adabiyaadkooda markay qorayaan wuxuu ku leeyihiin system kan ayaa wuxuu u dhisan yahayba in 10 sano 20 sano la hoobto oo iyar soo hadho. innagina waxaynu aragnaa inay tahay cillad iyo mushkilad ku jirta, iyagina waxay u arkaan badbaadada systemkuba inuu yahay haddii aanu saa u baabi'in oo sidaa u hoobanin systemkii kapitalismiga ahaa ma aha. waxyaabaha